daawade haddii aad maqli jirtay marfashyo u gaara ragga oo ay ku qaylaan kuna mirqaamaan iskuna weydaarsadaan sheekooyinka hadda warkii hore war soo dhaaf waxaa jira marfashyo u gaara haweenka iyo hablaha qayla oo magaalada Hargeysa ka jira kuwaasi oo ay ku kulmaan kuna cunaan qaadkooda iyo mukhaadaraadka kale sida sigaarka iyo badeecada arintaasi oo dhaqanka iyo diintaba halis ku ah waxaan bilaabay هذا سجل بلدن عناية وانقطع محاس باتم سئين باتا إنان بانا هاي محاك وكل فين القاشو وحنا وكل في رقبة نواله واحدة قالاني كي كم بحق رقي بانكي أنا يا واني كان مع لوردن كول عبدي هذا المصطفى صاحر الله ما أسمع واني كان سجورا هل كمان شو قاعد رقي بانكي إيوكا واحدة قالوا لي قاد كي بحق رماي waxaan kala talinayaa inay qaadkooda iska cunaan oo ay jooji wasi wataan waxa la yiraahdo joojinba anigu ma joojinaa wadayaade inta kale dhibaatooyin badan way ga soo wajahaya laakiin waxaan kaga soo baxay adoo wax macquul ah maskaxdooda gali kara aniguna dantayda aan ku wadan karo iyo balowdayda xaflad baan tagay miyaad ka soo tiri kaliya wallahi waxaan ku bilaabay bahasha la yiraahdo badeecada ama shiishada qofka soo yaqaan dadna kuma tagay madax xanuun fara badan oo kala kulmay laakiin qaadka wali wax dhibaato kale ma kulmay marka iyadii ma deysay soo sii wada iyadii laanteed ma wada qaajaba gabigeeda hadda xanarkay adigu sigaarka gacanta ku haysta sigaarka ku darsata sigaarka marka la waayo badeecada lagu geejiyo isaga marka horta marqaamaan dadka ma xasuustaba diiqad dididun hayso dhawaan cabdo waa iga fadhi cabdo joog sanu leeyahay waqti ku dhaca on ka kacaysa hadimooyinka jaadku rag intuu halakeeyay mar hadduu hilbaheenniyo haweenkeennii maraayo waa haydaara adduune halistiisa ogaada markay haadu istaagto hanfigeeda dabaysha tiyo ruuxdu haraaday darka suuqa hardaafa ee caleen hawadayga sida xoolaha hiiga rabbuna hadi maanta haweenkiina ku biiriye ileen hooyo mirqaantay waa halaagu madeede hawlo ceeb ka fogaada ka daawo barnaamijka hage maalinta salaasada habeenimada arbacadu soo galayso saacaduna ay tahay 10 iyo 15 daqiiqo habeenimo Horyaal TV hagaha bulshada